بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الصوماليات waxaan idin salaamay rag iyo dumar dhammaantiin. Waxaan idin soo gudbinayaa caawa suuratul falaq oo aan ka akhriyay wiigii hore. Wiigaan hadda ku jirno kiisii kale 313 ayaan akhriyay habeenada ka mid ah. kabacdina waxaan sameeyay waan xanuunsaday markaan akhrinayay. macalinka awal mada hore igu yiri akhriso biyana ku tufo, biyahaasna isticmaal tahliil ahaan u cab. waxaan sameeyay habeenkii markaan akhrinayay aad baan u xanuunsaday. xanuun waxa ay qabtay la aragoo la maqal. waxaan ku leeyahay aniga dhan qiiq waa iga baxay korka, waliba seedka bidixda ah. alxamdulillaah markii aan cabay biyihii aan ku tuftay iyo aan caleenta godka ku darsaday baan ku tufay. kabacdina waxaan sameeyay habeenkii ilaa iyo habeenka wuxuu ahaa habeen ay baxayso axad isniina soo galayso aan u malaynayaa. habeenkii ilaa adigu 3 cisho 2 cisho meelaha 3 cisho waxaan ahaa qof sakaraadaya oo xanuunsanaya oo dhinaca bidixda dhacsan yahay. gacantii baan qaadi waayay, lugtii baan qaadi waayay. waxa igu dhacay cagta ilaa madaxa waxaa laygaga daaray. waxaad moodaysaa in layga soo saaray dhinacaas mataqaanaa oo igaga jiro aan ku dhex jiro meesha la dhaho mataqaanaa tanuurka, meesha muufada iyo lagu dubo foornooyinka wax lagu dubo. aad moodaysaa inaan ku dhex jiro. waan ololayaa oomba haya maxaan ku raadaan iga ba'ayn. waan haraadsanahay. waa fariidaadka saac waan isrusheynayay. kabacdi sheekhi baan u sheegay. habeenkii labaad waxaan damcay ku celi. habeenkaas axad buu ahaa. isniintii baa waxaan damcay ku celi. habeenkii waan awoodi waayay. waxaan arkay in barajarku i dhacayo oo aanan kari karin oo wadnuhu isii dhacayo. waan iska daayay. habeen saddexaadkii baan ku celiyay. alxamdulillaah sidii waan ka fiicnaa, maan dareemeyn culayskii. kabacdi waxaan sameeyay habeen saddexaadkii macalinka ay soo wacayaan codadu duubay. waxaan ku yiri macalin sidaas baa noqday. kabacdina macalinkii quraan buu igu akhriyay. cabaar yar haduu quraan igu akhriyay. qayb xasadkii ka mid ah jirkeyga ku dhex jirtay baa hadashay. waxayna dhaheen 500 baan nahay. acuudu billaahi minash shaydaani rajiim. ilaahay naga dulqaado. waan anaga macnii qayb baa weli sii joogta, weli wax badan baa jooga, laakiin qaybtaas oo iga baxday inay mataqaanaa ay dhibaateynayeen muddo badan ay dhibayeen ayay sheegeen. sidaasayna igaga baxeen. carabka dhinaca bidixda waa aniga idinku sheegay kaliba horaan soo duubay. carabka hadda kahor madaxa waxaa layga baadan maskaxda buro laana hadalka igu dhigdhigi jiray. carabka wuxuu noqday dad soo meedaan arag dadka faalidka ku dhifto, dhiikarka oo bareeliska noqda, shalalka ku dhaco. ilaahay naguma ride. carabka soo maxaan ku dhahay hadalkooda wax qaldan maaha. soo kala hadalkayga wuxuu sida khalad baa soo galay. carabka ay cuslaaday. dhinaca bidixda carabka kabuubi ay igaga jirtay. carabka markasta waan qaniini jiray. alla carabka maxaa kaaga jira baan isdhihi jiray. adayg iyo kabuubi ay igaga go'naan jirtay. habeenkaas dambe oo macalinkii soo wacay quraanka igu akhriyay wax qayb ka mid iga hadashay ayaa ilaahay raxmaanka carabka kabuubiyada iga qaaday. weli waan dareemayaa. alxamdulillaah waxbaan dareemayaa, laakiin waxaan dareemayaa in intoodii badneed boqolkiiba waxaan dareemayaa 60 inay iga baxeen wixii jirkeyga ku jiray. habeenkii u horeysay oo macalinka quraanka i saaray, habeenkii u horeysay kow oo dee iguba horeysay macalinka maqalkiisa sheekha ilaahay ha barakeeyo. habeenkaas qayb waa iga baxday. waan dareemay culays baa iga tagay. habeenkii ku xigay oo wiig u dhaxeeyay jimcadii hore waxay ahayd jimcihiisa kale halka bogga ah ayaa waxba iga boodboodi jiray. waxba maxaan ku raday waxay ilaahay ahaan jiray. mararka qaarkood waxaan sameyn jiray markaan seexanayo maro intaan duuduubo oo saa u kuuso baan halkaa gelin jiray. naxdin iyo warwar baan ka dareemi jiray. wax saa u soo buuran bay ahayd oo bararan oo bug dhehdood maxaa taqaanaa boodbooda. waxaas habeenkii anigoo wax tahliila cabin oo wax dhira isticmaalin oo malab isticmaalin oo caleentii gobka isticmaalin oo waxbana cabin. ma yastaghfirullah caleentii gobka waan isticmaalay.
ayuu macalinku quraan igu aqriyay habeenkaas suuratul baqara igu dhameeyay habeenkaas ayaan mantagay markaan mantagay halkaas ay wax weyn iga soo fuqeen habeen kale oo dhirta isku qiijiyana wax weyn baa isoo kala jirkeyga ka soo baxaan mantagay alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh sheekha waan mahad celinayaa bacdallah waan mahad celinayaa jasaakumullahu khayr sheekh cabdinaasir man laa yashkuru naas laa yashkuru allah qofka aan ilaahay addoomaha ilaahay u mahad celin ilaahayna uma mahad noqo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay jasaakallahu khayr sheekh cabdinaasir ilaahay ha barakeeyo marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa suuratul falaq waxaan ka akhriyay 313 labada habeen baan akhriyay anigu insha Allah laakiin waxaan dareemayay in ilaahay culays iga khafiifiyay oo wixii jirkeyga ku dhex jiray ay aad u saameysay oo ayaamo dhan jirkeyga ku dhex sakaraadayeen ilaa ay qayb kamid iga baxday marka habeenkii waxyaabahan arkay baa idiin sheeginay habeenkii markaan seexday kow habeenkaan akhriyay waxaan arkay dad iga baxaya qof shaqli nin leh oo nin u samaysan oo libisan oo dharkiisa xiran oo koofiyadiisa iyo dharkiisa xiran ayaa iga dhex baxay kabacdi waxaan sameeyay waan cayrsaday waliba waan qaraacay ulbaan la dhacay waan kaasoo wuxuu sameeyay kabacdi waxa ii timi qof dumar ah oo gabadhaas waxay igu tiri dhinaca bidixda oo garabka ah meesha xanuunka ba iga bilaabay waan idin dhahayay wax waran camal ah bamadiisii mindi camal in la iga dhex dusiyay meeshii bay saa igu riixday 5 farood xoog badan waxaan jeclaan jiray qof allaala qofkan arko inuu ii tuujiyo xataa suuqa hadaan tago meel fariisto waxaan dhihi jiray inta yara fadhido yaa kuu keena qof kuu riixriixa garabka kaarka meeshaas dhimil daba iga saarnay meeshii markii saa igu riixaysay waxay igu dhahaysay walaalo jirkaaga xasad baa wuxuu ka dhigay shaandho oo dulduleeliyay alxamdulillaah de ilaahayna waxyaabahaas uu igu tusay oo inuu de xanuunka uu yahay xasad uu badan yahay qayb kamidi nin usoo caraysan waa shaydaan waxa laga yaabaa qaadibul xasad inuu yahay uu iga baxay isagoo dhulka isla dhacayo caraysan oo ka xuntay mataqana wixii ku dhacay wuxuu mataqana dhahayay waxyaabo ku celcelinayay waxaan ka xasuustaa waxaan doonayay imay hirgelin micnihii waxaan rabay inaan sameeyo matalan de qofka xasad markuu ku xasdayo de ujeedo buu ka leeyahay ama inuu guri dumiyo buu doonayaa nimco aad haysatid ayuu jecel yahay sawaala nacam nimcada inay ka suusho marka wuxuu sameeyay kaleeto ma ilmaha ayuu iga xasday ma garanayo cunugeyga ayuu wuxuu sameeyay uu saa u haystay cunugeyga oo jirka dakharo ku leh ma garanayo wuxuu ahaa marka alxamdulillaah ilaahay kolay waxyaabahaas igaga fayday marka walaalahay waxaan idin sheegayaa insha Allah suurada inaad akhridaan tiraba dhowr jeer insha Allah akhriya xasadku si kasto isu adkeeyo shayaadiinta horta waa kan ugu madaxa adag leen waan ogaaday in badan baan cilaaj ku soo dhex jiray xasadku waa midka ugu mariidsan oo ugu madaxa adag sixirka iyo jimanka iyo isha caymada intaba uu ka khatarsan yahay uu ka dhibaato badan yahay jirkana uu kaga dhibaato badan yahay kaga saameyn badan yahay marka ilaahay raxmaanka ah inaga qaado suurada soo akhriya waxaan jeclahay wax kasto soo tijaabiyay inay idin soo gudbiyo idin la soo wadaago codkana waan dheeriyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.